السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وناكسن داوديال halkani waa xarunta dhexe Alpha TV magaalada Wajeer xiliyadan oo kale waxaan noogu baratay inaan hawdani samarno war waxay dalka iyo deegaanka naga soo gaaray warka waxa la diyaar ah anigoo Maxamed Shaaficanko qodobada wararkeena ku daawan doontaan ayaa waxa kamid ah xuska maalinta hooda maxaabiista oo lagu qabtay magaalada Wajeer ganacsatada waaratada magaalada Wajeer oo ka cabanaya ganacsi la'aan macallimiin yaraan ka jirta guud ahaan ismaamulka Wajeer fid wanaagsan xuska maalinta xuquuqda maxaabiista ayaa lagu qabtay magaalada Wajeer iyadoo xabsiga Wajeer ay ku xiran yihiin maxaabiis gaarayaan 150 oo isugu jira rag iyo dumar wariyahana Ali Aadan ayaa warbixintaasi noo haya xuska maalinta xuquuqda maxaabiista ayaa lagu qabtay gudaha xabsiga Wajeer munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galeen laamaha amaanka maxaabiista ku xiran xabsiga Wajeer iyo bulshada qaybteeda kala duwan abaanduulaha ciidamada asluubta Ali Xasan oo goobta ka hadlayay ayaa ka warbixiyay maxaabiista ku xiran xabsiga leo ni siku ya wafungwa ulimwengu wote watu wanasherekea World Prisoners Day. Lengo na shabaha ya kusherekea theme hapana ingine, lakini wafungwa pia ni wanadamu. Hebu eleze mwenzako wafungwa pia ni mwanadamu. Lengo na shabaha nyinyi pia muko na siku yenu, mnatambulika na jamii. Mnatambulika na jamii. Kwa hivyo yangu ni sherehe tu. Tunawatambua nyinyi ni wateja wetu. Tunawapenda kama sio nyinyi sisi wote mnatuona hapa hatuna kazi. Tuko na akina mama, nadhani umeona dance hiyo safi sana. Hawa akina mama ni wageni wetu. Ni wafungwa ndio, lakini wageni pia wanatoka jirani pia, nchi jirani. Hawa si wa Kenya. Jana tuliweza kupatika wageni kutoka Kenya National Human Rights Commission kutoka hapa nchi yetu na pia Djibouti. Wameweza kututembelea. So hawa ni aliens. Sisi kama idara tunaomba wenzangu pia wako hapa, tunaomba, bado tunazidi kuomba aliens waweze kusaidiwa, wakipatikana waweze kurudishwa kwao. dhanka kale waxa goobta hadallo kooban ka jeediyay abaanduulaha booliska ismaamulka Wajeer Stephen Ngatich. Tunawaheshimu, tunajua nyinyi pia ni members ya community. Si kweli? Ni bahati mbaya tu vile kilifanyika, lakini nafikiri kwamba labda baada ya hapa, baada ya kumaliza kifungo, mtabadilika, mkuje kwa community, tusaidiane na kujenga taifa. Ugu dambeyntii waxa sidoo kale ka hadlay xakiinka maxkamadda Wajeer asagoo ku nuuxnuuxsaday in maxaabiista ay ka faa'iideystaan waqti ay xabsiga ku jiraan. si kastaba ha ahaatee munaasabadani ayaa waxay ku soo gabagabowday safar hadla ayadoo maxaabiista ku jiraan xabsiga wajiyadooda laga dareemaya farxadda xuska maalinta maxaabiista. Ali Aadan, telefishinka Alpha, gudaha xabsiga Wajeer. runtii gabdhahaasi waxay ku faraxsan yahay xuska maalintooda halka qof walba oo dunida jooga uu jecel yahay inuu farxadda la qaybsado dadkiisa, balse gabdhahaasi may u suurtagal in maanta ay reerkooda farxadda la qaybsadaan. wararka kale oo idin hayo ganacsatada waaratada magaalada Wajeer ayaa ka cawanayaan ganacsi la'aan iyagoo sheegay ama u aaneynaya inta badan kiiska ka naga barasabka Wajeer, waxayna dawladda ugu baaqeen inay kiiskaasi go'aan degdeg ah ka gaarto si ganacsigooda uu sidii hore ugu soo laabto. wariyahayna Xasan Ciyaar Jecel ayaa warkaasi inoo soo diyaariyay. isbeddelka habdhaqanka bulshada maanta waxa uu ka mid yahay in qoysas aad u tiro badan dumarka ay ceeshka miiska u saaraan. haween aad u tiro badan ayaa maanta ganacsiyo kala duwan ku hayo gudaha magaalada Wajeer kuwaas oo dakhliga ka soo xaroodo ay ku tiirsan yihiin boqolaal qoys. warbaahinta Alpha ayaa dumarka ku ganacsado magaalada Wajeer mikrofoonka la dhax qaaday waxa ayna ka warbixiyeen
xeerka beecsharada iyo caqabadaha ganacsiga haysto guud ahaan magaalada Wajeer. waxaan imaanay halka saac nusku ilaa alaana hatta hal dirac hatta liigama gadanay ganacsiga zaid aad u hooseeya adigoon basaaka aan irsaaqam ciidaada ku asu imaadaysa meeshaanayto adoon hal dirac aan gadana waa noqonay waxaan ku eedaynay mara dawladda aan bajiranba bilooyinkii ugu dambeeyay guud ahaan countiga Wajeer waxa uu hoos u dhac ku yimaaday xeerka ganacsiga waxaana sare u kac laga dareemayay sixir bararka ayadoo kala socod la'aanta ganacsiga iyo beecsharada loogu aanaynayo kiiska maxkamadda ka yeelo gobernatoraha ismaamulka Wajeer Maxamed Cabdi Maxmuud rajo xumida ganacsiga dhinacyada badan ee ay la kulmaan ganacsatada magaalada Wajeer ayaa culays ku noqonayso dadka nugulka u ah beecsharada kuwa oo intooda badan beecsharada isaga baxayo bilooyinkii ugu dambeeyay anaka beecsharo ma haysan hoos ma haysan meelan ku ganacsana ma haysan meeshis laba biri fadhido laba dhaaran dhigata shid ilaa lagu kaxeeyna nin count maxaa la dhahaa kanta kansol ay soo dirtay ashid maxaa la dhahaa laad ku kaxeeyna meeshi beecsharo laanta waxa nooga sii diran meeshan ku ganacsanayne kadib bilowgii sanadkan markii macallimiin gaaraya 900 ismaamulka Wajeer isaga carreen ayaa waxa guud ahaan ismaamulka Wajeer soo food saartay macallimiin la'aan xogayaha ururka NAT ayaa sheegay in macallimiin la'aan ay ka jirto qaybo badan oo ka tirsan ismaamulka Wajeer warbixintaasi waxayna haysaa Fartuun Isaaq Ali tan iyo intii macallimiintii lagu laayay tuulada Qarsa ayaa waxa dhacday macallimiin yari soo food saartay guud ahaan ismaamulka Wajeer kadib markii ay macallimiintii ka soo jeeday qaybaha kale ee dalka ay isaga baxeen ismaamulka Wajeer dawladda ayaa shaqaaleysiisay macallimiin hor leh si nafaaska ay ka carreen macallimiinta loo buuxiyo xogayaha ururka macallimiinta ee KNUT laanta Wajeer Mr. Nur Bardad oo waraysi gaar ah siiyay Alpha TV ayaa wuxuu sheegay in deegaano badan oo ka tirsan ismaamulka Wajeer ay macallimiin la'aan yihiin macallimiin laanta dhulka naga haysato bari dhuweeto macallimiintii marka ay baxeen dib al dhacay dawladda Teacher Service Commission macallimiin aan qorinay dhahday macallimiintooda la qoray gobollo badan ama magaalooyin badan oo ka faa'iideysan ay aad u jira oo marka hore la dhahay waxa la Ministry of Education qoraysa waxa la dhahaa curriculum assistance maxay TC ma qabta nidaam UTs la ila laba taam hadda la soo dhaafay taamka hore iyo taamkan ilmaha Wajeer County akhrislaan ay hayeen gobolka sidoo badan yahay aan soo qaato Wajeer East waxa ka bilowda Lambib 9 kilometers oo marto Arbaqayraan soo Sitawaariyo Bola Cilmi Qorf Xaraar Wajeer Boor Konton Qarsa dhulkaas ilaa waqtigan macallin TC lama keenin taamka hore ma akhrisan taamkana ma akhrisan Mr. Bardad ayaa dhanka kale sheegay in waalidiinta ay ku dhib qabaan hagaajiska shahaadooyinka dhalashada maadaama goobaha diiwaangelinta ay ku filneen certificate qoray registrar Wajeer County oo idilba laba kila xaq joogto mid waxa jooga Habaasweyn midna Wajeer County afarta sub county oo kala Eldaas Tarbaj Wajeer West Wajeer North ma qabaan wax registrar la Wajeer oo ka saysa inta kilometer ay how fast is this weyn ka qabto laami aan leen baas meel kasta asgalin gaari meel kasta asgalin ilmihi subax kasta waxa soo fiijina headmasteryaasha kastaba ha ahaatee dhalinta Soomaaliyeed ayaa ka cagajiidaan in ay sameeyaan koorsadaha macallinimada balse waxay soo tarayaan baaqida loo jeedinayo dhalinta Soomaaliyeed si looga kaftoomo bariyaasha aansan u dhalanin gobolka Waqooyi Bari Fartuun Isaaq Ali Alpha TV magaalada Wajeer magaalada Wajeer waxaa ku soo badanaya dhalinta isticmaasha daroogada iyo waliba goobaha daroogadaasi lagu iibiyo inta badan waxaa dhacda in dhalinta Soomaaliyeed ay isaga carraan waxbarashada iyagoo isticmaalaya daroogada wariyaheena Fahad Cabdi ayaa dabagal ku sameeyay soo ogaaday goobaha lagu iibiyo daroogada iyo waliba in dhalin badan oo isticmaasha daroogadaasi dhalin badan ayaa nolosha ka dhacaan sababo ah inay isticmaalaan muqaadaraad
waxaan u korgalnay inaan ogaano goobaha lagu iibiyo muqaadaraadka waxaan booqanay meelal badan oo uga shakinay in muqaadaraadka lagu gado ugu dambeyntii waxaan haleelnay meel ka mid ah halka dhalinta ay ka soo gataan mid ka mid ah daragooyinka lagu iibiyo magaalada Wajeer. Uko nazo? Unatoka nao machi? Unauza na ngapi? Unajua kiubeshe sinaelewa. Leo nimeamua kutoka mtaa. Kwa nataka kiubeshe. Box ama. Okay, unauza ngapi box na machi? Ha? Tufike. Na tembe pia unauza si ndio? Sidoo kale Dr. Abdi Fattah ayaa naga warbixiyay dhibaatooyinka laga dhaxli karo daroogada. Diazepam waa dhibkeedu waa badan yahay dhalinyarada. waa addictive baad ku noqoni jirkaada baa barana la'aanteed marka jirkaada ma shaqeynayo marka jirkaadana hadduu barto shaqo caadi ma qabsan kartid you will always depend on it ma fahmi marka maxaa ku soo socon ama akhrisan doontid ya dad shaqo aadaysi shaqo ma aadi kartid ilaa waa isku hurdi haya wax hilmaam wax baad hilmaamaysaa dhinaca ilmaha taa badana dhalitaanka ilmaha taa way ka yaraanayaan. There's something called low libido. The sexual urge itapoteza pia utapata gastritis pia because of chronic use of this drug italoshaada bay dibukeni dhalinyaro fara badan ay waxbarashada isaga tageen kadib markay isticmaaleen muqaadaraad kuwaas ay iminka nolosha ka dhaceen Fahad Abdi telefishinka Alfa ismaamulka Wajeer. magaalada Wajeer waxaa ku soo badanaysa goobaha lagu iibiyo hidaha iyo dhaqanka iyadoo Soomaalida inta badan ay ka tageen dhaqanka Soomaaliyeed ayna doorbideen reer galbeedka. Wariyaheena Cabdiraxmaan Geelahajir Cabdiraxmaan Macaawiye ayaa warkaasi noo haya. dhaqanka Soomaalida waxaa la isticmaali jiray agabka laga qoro geedaha taasi oo aad looga isticmaali jiray guud ahaan bagayiga Soomaaliyeed balse sanadahan dambe waxaa sii maanguuraya alaabta hidaha iyo dhaqanka ee hore loo isticmaali jiray. magaalada Wajeer waxaa ku yaala goobo lagu iibiyo alaabta hidaha iyo dhaqanka. haweenka ka ganacsada alaabta hidaha iyo dhaqanka ee suuqa magaalada Wajeer ayaa waxa aynu wareysanay alaabta hidaha iyo dhaqanka ay iibiyaan. asiga waad fiican yahay sukoysi magaaladan ba lacag lahayn oo ma aragtay oo dadka lacag la noqdo ma ogi ganacsiga annagu waa noo fiican ilmahan ku biilina ilmaha iskuul ula baxna alxamdulillah shukr waxis ilaahay naga siiyaan ka qaadana. waxaa yaraaday aroosyadii lagu gali jiray aqal heeriga amaba aqal Soomaaliga taasi oo ay da'yarta u arkaan mid ceeb ah qofka ku gala aqal Soomaaliga arooska. haweenka ka ganacsada alaabta hidaha iyo dhaqanka ayaa da'yarta hadda joogta ugu baaqay inay alaabtani gataan aqal Soomaaligana ku aqal galaan. ugu dambeyntii haweenka ka ganacsada alaabta hidaha iyo dhaqanka ayaa dawladda ka codsadeen inay ogaato suuq weyna u dhisaan. noola qaada hadaa lacag nagula saaciday hadaa dhismo meel noola dhiso baatiyaal baqaar noola dhiso alaabta waa nagala xadaa wash weynaa la jiro habeen walba la xadaa dufulka la xadaa bunduda cawda la xadaa wax walba la xadaaya bish lacag nagala qaataa. si kastaba ha ahaatee waxaa sii maanguuraya dhaqanka Soomaalida iyadoo iminka ay sii yaraanayaan wax isticmaala alaabta hidaha iyo dhaqanka. Cabdiraxmaan Geelahajir Cabdiraxmaan Macaawiye Alfa TV magaalada Wajeer. daawadayaal intaasi waxay nooga dhan ruuxi dalka iyo deegaanka naga soo gaaro si toos ah uga dhahanaysan Alfa TV waxaan idin socodsiinaya aniga Maxamed Shaafican ko aniga iyo waliba baxdayga laga muuqatay waxaan idin leenahay sidaas waliba nolol farxad leh.